kusoo dhow riwaayadda sahanka nolosha. tani waa qaybta 9aad xalqadda 5aad. xalqaddii 4aad waxaanu soo aragnay Sheekh Rooble oo dadka deegaanka daaqsan u sheegaya in hibo xilkaasi ku meel gaar ah ay u qabanayso maadaama ay tahay musharrixii mooga ku xigay. maxay la kulmi doontaa hibo? dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya ismariwaaga kabtan xasan iyo zamzam, inkastoo taliya axmed uu u arko zamzam inay tahay qof wax badan ka bedeli kara ciidanka ilaalada xeebaha maadaama ay aqoon u leedahay oo ay tababar soo qaadatay. halkee ayay sheekadaasi ku biyo shuban doontaa? haddaba halkan ka dhigayso sheekooyinkaasi iyo kuwo kaloo xiiso badan isla hadda. subax wanaagsan saaxiib. subax wanaagsan. saaka xiradeena ciidanka oo waxaan ku arkaa dad cusub. talo maxaa soo kordhi saaxiib? saaxiib anigaba waan yaabanahay, laakiin kolley dad ciidanka ilaalada xeebaha ka tirsan weeye dadkan. waan u jeedaa inay yihiin dad ka tirsan ciidamada, balse waxaan ku weydiinayaa ah inaad taqaaniyo in kale. kolley waana la barayaa shakhsiyaadkan bal aan yaro sugno. kabtan xasan waa qasab inuu iskaaga baro dadkan naga cusub saaki ee nagu soo kordhay. war aawe ciidankii waana kanaa taliya, waana kanaa. war ma la wada joogaa mise qaar ayaa naga maqan? war aaway dad hadday maqan yihiin noogu yeera fadlan. taliya waa la wada joogaa oo cid maqan ma lahan, way wada dhan yihiin. haa waa yahay, gudaha hoolkan xafiiskayga ku dheggan dhaqso u gala. dhammaantiinna wada gala halkaa fadlan. waayahay taliya, waa tahay waa taada baxaynaa. waayahay subax wanaagsan dhammaan ciidanka ilaalada xeebaha ee halkan ku sugan saakay. runtii ilaah baa mahad ku leh in subax kale annagoo wada caafimaad qabna aan halkan isugu nimid. subax wanaagsan. waxaa la joogaa xilligii aan u diyaargaroobaynay howlgal maalmeedkeennii caadiga ahaa. sow sidaas ma aha oo loolama socdo? haa taliya, waa la soconaa. haa taliya, jadwalkeennii sidiisii ayuu inoo yahay oo waxba iskama beddelin, balse waxaan doonayaa inaan idinla wadaago 2 waxyaabood oo muhiim ah. ma garateen dhammaantiin? haa taliya, waan garanay. waxaan u hambaliyaynayaa saabir oo ka tirsanaa ciidankeena ilaalada xeebaha oo dhaawac nooga maqnaa islamarkaana ka soo kabsaday muddo dheer oo la daaweynayay kadib. maanta alxamdulilah wuuna la joogaa saabir. waxaa jira ciidamada qaar ka mid ah oo aan garanayn saabir, waayo waa ciidankii la qoray intii dhaawaca uu nooga maqnaa, laakiin way maqleen kollay magaciisa. sow sidaas ma aha? haa waa maqal waan garanaynaa taliya. qodobkaas waan isla garannay kolley. inta aanan aqoonin saabir hadda ayay barteen. waxaana leeyahay saabir, mar kale ku soo dhowow xeradaadii aad ka tirsaneed ee ciidanka ilaalada xeebaha oo aad lagaaga xiisay. waad mahadsantaha taliya xasan, aad baad u mahadsantaha, waan dhowahay. waxaa kaloo jira zamzam oo ka tirsaneyd ciidanka ilaalada xeebaha ee daaqsan oo waxbarasho u jirtay magaaladii muqdisho oo hadda si kumeel gaar ah noola shaqayn doonta, ayaa iyaduna halkana la joogta saakay. waxaan leenahay iyaduna soo dhowow zamzamey, qalbi furan, gacmo furan iyo dad ku jecel ku soo dhowow goobta ay ku sugan yihiin ee xerada ah. soo dhowow zamzam, soo dhowow. waan dhowahay. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. magacaygu waa samsam. waxa aan ka mid ahay ciidanka ilaalada xeebaha daaqsan. sida la idiin sheegayba waxbarasho ayaan muqdisho u jiray in muddo ah. aad ayaana ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto deegaankayga daaqsan. mar kale dhammaantiin aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa. xerada ciidanka ilaalada xeebaha xilligii aan ka tegayey iyo hadda wax badan ayaa iska beddelay allaylehe. ciidan cusub ayaa ku soo kordhay. aad ayaan ugu faraxsanahay runtii daaqsan in ciidankeedu ay aad u sii kordhayaan. adinkana sidoo kale waan idin soo dhowaynayaa. waa wax lagu farxa soo maaha? waxaan aad ugu haminayey inta aan waxbarashada ku jiray inaan mar uun ku soo laabto deegaankaygii daaqsan oo aan aad ugu hiloobay, si aan waxa aan soo bartay ula wadaago ciidamada ilaalada xeebaha ee daaqsan. taas ayaana hadda diyaar u ahay. ma i garateen? hadda marka waxa iigu weyn ee aan doonayo ayaa ah in aan idinla wadaago waxyaabihii aan soo bartay
oo aan tababaradeydii idinkaga faa'iideeyo wax walba oo aan soo qaatayna waxa aan filayaa inay idin anfici doonaan soo maaha zamzam bes halkaas ku ekay hadalka wakhti badan ma haysano war badan ma sii geli karno aamusa waxaan idiin sheegayaa inaan shaqooyinkeena kala aadi doonno ma garateen xilligii shaqada ayaan toos u gudagelaynaa maanta hawsheennu waa ka yara duwan tahay maalmihii aynu soo dhaafnay sidii aan u shaqaynaynay ma fahanteen sida aan wax idinkugu sheegno fadlan u fuliya howlaha muhiimka ah ee hor yaalla haddaba howlaheena waajibka ah ee maanta waxaan doonayaa in marka ugu horaysa saabir uu inoo noqdo qofka noo qori doona sida howlgalladu u socdaan isaga ayaa qori doona isaga ayaad uga dambaynaysaan amiradiisa iyo talooyinkiisa ayaad qaadan doontaan ma garateen waxaa xiga samsam iyo colaad waxa ay kala hoggaamin doonaan 2 koox oo ciidanka ilaalada xeebaha daaqsan ka mid ah oo ku sugan goobahaas waxayna kormeeri doonaan weliba si joogto ah oo aad u feejigan xeebaha deegaanka daaqsan iyo nawaaxigooda waad fahanteen ayaan u malaynayaa amarkaasina waa qaadasho inta aad kormeerka ku jirtaan wax walba oo aad la kulantaan waa inaad nala wadaagtaan si laydinkaga warhayo oo dhaqdhaqaaqiina loola socdo warkaasi waa cadyahan u malaynaa wax ka soo laabanaya ma laha waxaana hadda aan doonayaa in howlaha loo kala dhaqaaqo qof shaqadiisa loo sheegayana ma jirto oo waan ismaqalnay waxa aan doonayaa hal arrin oo aad ugu wanaagsan ciidanka ilaalada xeebaha inaan idiin sheego kabtan xasan fadlan arrintaas ii oggolow suga wax kale ma aha waa wax faa'iido uun inoo ah dhammaanteen waxaan idiin hayaa oo aan doonayaa in aan ku howlgalno hab cusub oo waxtar leh aadna loogu riyaaqi doono haddii aan habkaasi u shaqayno annagoo wada jir ah waan guulaysanaynaa runtii zamzam fadlan markii labaad ayaan ku amrayaa hadallada tirada badan naga jooji waxaa la joogaa xilligii howlgallada ciidanku ay caabboon yihiin shaqay diyaar u yihiin hadal badan haan ma buuxsho hadallada tirada badan fadlan naga yaray meeshaan aniga ayaa taliya ka ah waxaana lagu shaqaynayaa amaradeyda wixii aan diido waan diiday wixii aan oggolaado waan oggolaaday go'aanka iyo amarada aniga ayaa iska leh qofkii isku daya inuu ku soo xadgudbo awooddayda gacan bir ah ayaan isaga qaban doonaa saxanka nolosha salaamu calaykum wacalaykum asalaam xafiiska ma la joogaa waa la joogaa guddoomiye soo dhowow sheekh rooble ayaa jooga hor u sii gal mahadsanid adiga ayaa mudan guddoomiye soo gal waayo salaamu calaykum sheekh rooble wacalaykum asalaam hiba soo dhowow hiba soo dhowow waan dhowahay sheekh rooble see tahay alxamdulilah waa la fiican yahay hibo halkan soo fadhiiso meeshaan arkayso waa xafiiskaagii ku soo dhowow waayahay sheekh rooble waa mahadsan tahay waxaan doonayaa hibo inaan dhammaystirno maanta sida dastuuriga ah xilka laguu magacaabay taas oo ah saaka in xilka lagu dhaariyo waayahay sheekh rooble waa mahadsan tahay waxaan filayaa inaad hibo diyaar u tahay dhaarinta saaka lagu dhaarinayo xilka guddoomiyaha magaalada daaqsan diyaar ayaanu ahay sheekh rooble waxaan doonayaa in marka lagu dhaariyo xilkan aad howlahaaga guda geshid waayo shaqo badan ayaa kuu taalla howlaha gobolkan maaha wax sahlan mana yara waa arrin culayskeeda leh waa sax sheekh rooble aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waayahay waxaan ku dhaho hibo iga dabadheh waayahay sheekh rooble diyaar ayaannu ahay waxaad leedahay anigoo ah hibo waxaan ballan qaadayaa in xilkan guddoomiyaha daaqsan aan si daacadnimaah u maamuli doono anigoo ah hibo wardheere waxaan ballan qaadayaa in xilka guddoomiyaha daaqsan aan si daacad ah u maamuli doono waxaan halkan ka caddaynayaa inaan deegaanka daaqsan iyo dadka si hufan ugu shaqayn doono waxaan halkan ka caddaynayaa inaan deegaanka daaqsan
iyo dadkaba si hufan aan ugu shaqayn doono. si cadaalada ayaan u gudan doonaa xilkan aan qabanayo ee guddoomiyaha daaqsan. Si cadaalad ah ayaan u gudan doonaa xilkan aan qabanayo ee guddoomiyaha daaqsan. hibo waa kuu hambaleynayaa, guul ayaan kuu rajaynayaa insha allah. mahadsanid sheekh rooble. waxaan ku xusuusinayaa in xilkan aad hayd doonto keliya inta la qabanayo doorasho kale. waan ogahay sheekh rooble, aad ayaan kuugu mahadcelinayaa sida hufan ee aad uga shaqaysay doorashada ka dhacday daaqsan. hibo waad mahadsan tahay. taasi waa waajib naga saaran dadka iyo deegaanka aan ku noolnahay haddaannu nahay odayaasha reer daaqsan. waa sax, waa runtaa, taasi waa waajibkiinna ka odayaal ahaan. waxaan doonaya inaan kuu sheego oo aan iloobay. hee sheekh rooble. labadaa nin waxa ay ka shaqeeyaan xafiiska guddoomiyaha ee deegaanka daaqsan. waan gartay sheekh rooble. ninkan waxaa la yidhahdaa ridwaan, ninkan waxaa la yidhaahdaa tawfiiq. waa muhiim inaad isbarataan oo iskiin baro. barasho wanaagsan. haye waad og tihiin ridwaan iyo tawfiiq in hibo ay tahay guddoomiyaha cusub ee kumeelgaarka ee deegaankan daaqsan. waan ognahay barasho wanaagsan. haye hibo waan sii baxaya anigu, marka khayr ayaan kuu rajaynayaa. kolley waan kulmaynaa maalmaha soo socda haddii alla yidhaahdo. insha allah kaama maqnaan doono ilaa hawsha aad la qabsanayso. waayahay sheekh rooble, waad mahadsan tahay nabaday. sheekh rooble, anigii tawfiiq ayaan ku sii sagootinaynaa. waayahay mahadsanidin. sheekh rooble halkan soo mar, inta ka soo bax. soo gal. waa ayo. waa aniga hibo. haa xaawakiin, soo dhowow oo soo fadhiisa halkan. hibo, marka horay hambalyo. mahadsanid xaawakiiney. waan maqlaayay marka xilka lagu dhaarinayay xafiiska bannaankiisa ayaan taagnaa. maasha allah. waan gartay walaashay, mahadsanid. hibo, waxaan kuu sheegayaa in aad haysato fursad aad qaali u ah oo aan qof kasta heli karin. ma fahamtay? warka ii jilci xaawakiinay, kuma fahmine. hibo, maanta waxaad joogtaa muraayadda laga daawado deegaanka daaqsan, waana xafiiska guddoomiyaha ee aad maanta adiga maamulkiisa la wareegtay. ma i fahantay? waan ku fahmay. fursadda aad haysato ayaa ah inaad muujin kartid waxqabadkaaga si ay dadweynuhu u arkaan inaad tahay guddoomiye wanaagsan oo deegaanka isbeddel ku samaynaya. waa runtaa walaashay. dadka qaarkii aaminsanaa in haweeney ayna waxba qaban karin waa inay arkaan waxqabadkaaga iyo kartidaada hibo. aniga waan hubaa inaad karti u leedahay inaad wax qaban kartid. mahadsanid, waa talo wanaagsan xaawakiin. xafiiskan aad maanta madaxda ka tahay waa meeshii aad isku muujin lahayd. fakarka gurcan ee dumarka laga qabana ay ku soo afjarmi lahayd, taasoo ah haweenku wax ma qaban karaan. waa runtaa, waan qaatay taladaada wax ku oolka ah xaawakiin. mahadsanid guddoomiye. waxaan ku weyddiiyey, ma maqashay wax war ah oo ku saabsan ninkii mooga ahaa baryahan? shib iska dheh, qoyska mooge ayaa ila soo xiriiray, waaba iga yaabiyeenba. oo maxay ku leeyihiin reerkiisu? waxay isku dayeen inay isoo wacaan oo ay igu qasbaan inaan taageero mooge. har iyo habeenba waa i wacaayaan. waan gartay. haye. waxaan u sheegay in mooge maxkamad ciidan la hor keeni doono maadaama burcadbadeennimada lagu soo eedeeyey ee tahay dembi aad u weyn. waa yaab. saxanka nolosha. allah, meesha cuntada ma aysan imaan weli colaad iyo saabir sida aan filayo. colaad waa tuu idhahaya saabir ayaan soo kaxaynayaaye. talow maxaa ku dhacay? wuuba soo daahaye. labadoodiiba ma arko. alla maxaa ku dhacay? haa waaba kuwaas hadda soo socda oo hadda ayay soo gelayaan. allayleh hadda ayaan arkaa waaba kuwaan. saabir iyo colaad, kaalaya halkan imaada. hadda ayaan idin arkay, waaba idin raadinaye. soo dhowaada, kaalaya halkan soo fadhiista. waryaa colaadow, saaxiib nakeen sansamaa noo yeeraysay, soo uma jeedid? haa saabir, saaxiib waan arkaa. nakeen aan u tagnay. war ii warran saabir. colaad waa isla soconnay maanta oo dhane. warka isii adiga ayaana ku aragay. maxaad haysaa? waan fiicanahay samsamay, aad baan u fiicanaha alxamdulilaah. ii warran adiga see tahay? warniyo waa kuu fiicanahay anigana. meeshan ayaan ku qadaynayay hadda. saabir, anigaa cuntada noo soo qaadaye ee zamzam la sii joog adiga. waayahay colaadow, waad maadsantaa anaa la sii joogaya orodbax noo keen. war kaala soo dhowow ila cun aniga. waxbaa ismartiyeene. saxankan ayaaba naga badana kaalay. may zamsamay may, waad maadsantaha dhib malahan, iska sii cun adiga.
colaad baa noo keenayey saabirow waatan qadadeeni saaxiib waxbaa gabadha ha ku dhibine kaalay la qadee war waan u jeedaa saaxiib waan u jeedaa kowdhe waad mahadsan tahay niyahow si dhaqsiyaana noogu keentay cuntadee iyuub waa noo keentay maxaa dhaca haa saabirow meesha ciidankii waa qadeeyeen badi qaarna waa maqan yihiin waa firaaqo meesha cunnada laga soo gurto marka saasay maxay ahayd tole aan degdega ugu keenay haa ileen sababtaa u soo dhaqsato waa taas waan yaabbanaa mugto waxaan isleeyahay meesha jaan bay ahayde goormuu cuntada ciyuu keenayey war haye bal ii warrama saaxiibayaalow warka isiiye maxaa noo kala dembeeyey wallaahi waa la fiican jawiga alxamdulilah walle waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada ayaa horay loo yidhi waaba kuwan raggii maanta waa ishor fadhinaa waa run xikmaddaasi waayo meeqa ayaan kala maqnayn annaga maanta waa wada fadhinnaa waxaan kala maqnaanaba waa sax haddii la nool yahay waa la is arkayaa horta niman yahow aniga xeradan xasuus gaara ayay ii leedahay runtii gaar ahaan xilligii aan tababarka ku qaadanaynay wallee marna ma iloobo zamzamee xilligii tababarka aan ku qaadanaynay miyaa la iloobi karaa waa wakhti xasuus mudan oo aan marnaba maskaxda laga saari karin saaxiibayaal anigu qalbigayga wuu isbeddelayaa haddaan soo xusuusto maalmihii quruxda badnaa ee wacnaa ee tababarka aan ku qaadanaynay xerada ciidanka ilaalada xeebaha runtii aad baan u qiiroonayaa inaan soo xasuusan baa mararka qaarkiis aan jeclaysanayaa wakhti aad u macaan ayaan ku soo qaadannay deegaanka daaqsan runtii waa wax lama iloobaan ah iyo weliba xerada ilaalada xeebaha ma annagaaba iloobi karna taas bal zamzamey waxaad inooga warrantaa waayahaagii muqdisho iyo tababarkii aad ku soo qaadatay muqdisho waxaan ku soo qaatay maalmo wanaagsan runtii dhinaca tababarrada iyo waaye aragnimada aan ku soo kororsaday runtii sheeko dheer ayay u baahan tahay iyo fadhi kan ka weyn haa aad iyo aad waan ku garanay aad baan kuu fahanay runtii tababarkaasi waxa uu ahaa mid faa'iido badan maadaama ilaalo caalami ah iyo kuwo Soomaali ahba aan isla qaadanaynay wax badan ayaan ka soo faa'iiday oo waxbarasho badan ayaaba iiga korortay aad iyo aad waa ku fahmay oo zamzamey haddii tababarayaashu caalami ahaayeen walaalay sidee isku fahmayseen tababarayaasha ama macallimiinta waxay isugu jireen kuwo Soomaali ah iyo kuwo caalami ahba sidaa daraaddeed way noo sahlanayd inaan la qabsanno waxbarashada allayle hadda waa iga daadegtay oo waa aan ku fahmay marka maadaama Soomaali ay ka mid ahaayeen macallimiinta taas ayaa noo fududaysay inaan la jaanqaadno dadka aan la tababaranaynay sidaas ayay ahayd oo waa sidaas miyaa aad baan kuu fahmay waxaan filayaa wax badan inaad ka soo faa'iidaysato zamzamey saaxiibayaal culayska ayaan saarayay sidii aan wax badan uga baran lahaa tababarayaashaas caalamiga ah iyo kuwa Soomaalida ahba si aan wax badan uga barto xitaa hal maalin fasax ma qaadan casharna imaba uusan dhaafin aad ayaad u dadaashay runtii waan kugu hambaliyaynayaa walaashay dadaalkaaga wax ku oolka ah runtii waxaadna tustay inaad tahay qof karti leh hadda marka waxaan aad uga fakarayay sidii aan ugu shaqayn lahaa aqoontii aan ka soo kororsaday tababarkii muqdisho zamzam kuma fahmin bal halkaas ii jilci maxaad ula jeedaa ujeeddadeedu waxa ay tahay oo aan jeclaan lahaa inaad ila socotaan oo wixii la isoo barayna aannu si wada jir ah loogu shaqeeyo si loo hormariyo ciidanka ilaalada xeebaha ee deegaanka daaqsan saas xoogaa cabsi moo zamzamey war colaadow maxaa cabsiyaa saaxiib colaadow qorshahan miyaad dhaliilaysaa haddana adiga niyo maxaa jira aniga ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan hormarinno ciidanka ilaalada xeebaha oo keliya taa ma ila garatay waa ku gartay aniga aad ayaan kuu fahmay horta aniga ka saabir ahaan waxaan qabaa horumarinta ciidanka inay tahay wax la doonayo aad muhiim u ah waana fakar wanaagsan arrinta ay zamzam inoo sheegayso marka colaadow inaan qaadannaa aad bay u fiican tahay anu sidaan is leeyahay horta aniga waxa aan wax u soo baranayay waa deegaankayga oo keliya ama daaqsan oo keliyaba sidaas ayaana tababarka la iigu diray ma fahanteen fakarkaaga ma dhaliilsani zamzam laakiin waxaan kaaga digayaa inaadan ku fududaan fakarkan si furanna aadan uga hadal marka maxaa dhiba oo ka imaanaya ayaad is leedahay haddii aan si furan uga hadlo yacni ii jilci warka ma aanan ku fahmine saraakiisha ilaalada xeebaha qaarkood way ka caroonayaan gaar ahaan kabtan xasan hadda waxaas waa sheeko dheere hadalka hoos noogu dhiga kabtan xasan ayaa soo socda aaway saraakiishii iyo ciidankii waxaan idinka doonayaa inaad si dhaqsaa iigu soo gudbisaan saddexdiinnaba howlihii maanta aad soo qabateen inta aan gabalku dhicin ayaan idinka rabaa warbixin dhammaystiran waana idinka sugayaa oo gabalkiyuusan idinku dhicin waraakhyaaray aniga waxa aan doonayaa inaan la hadlo xasan oo aan la fadhiisto si aan uga helo hab wanaagsan oo aan ku wada shaqayn karno sidaan si lagu wada shaqayn kara maaha waaba ku wareeray aniga ninkan waa inaan la fadhiistaa wallaahi waa runta waa inaan la hadalniyo saxanka nolosha
soo jiid doonidaas agteeda ku xir doonida. waa ku soo daalnay badda wax aan ka soo faa'iidnayna ma jirto. niman yahow baryahanba dhibaatada kalluumaysatada haysata waa iska jirtay. Dirirow, hadda waa sii siyaada baash oo aad arkaysaa doomo waaweyn ayaa baddii soo buux dhaafiyey oo giddigood aan ahayn deegaanka. waan u jeeda doomaha iyo maraakiibtaba. dirir saaxiib waxaad dhaaf dhibaatada haystaa kalluumaysadeennu waa in aan wax uun samayno sidaan laguma joogi karo lagamana aamusnaan karo sidan waa dhibaato dirir. kalluumaysatada ma tuugsanayaan haddii shaqadooda laga hor joogo oo aan loo oggolayn in deegaankooda ay ka kalluumaystaan. dirirow adigaa noogu way aragsan meesha tankowdhe ee baltala keen si caqabadahan looga baxo dhibaato weyseen laguma joogi karo waa rafaadna annagu. waxaan idin weyddiinayaa kalluumaysatoy laysima ma leedihiin waxaa loo baahan yahay inaan cabasho muujinnee. laysimada waa caadi waxaa laga bixiyaa xafiiska guddoomiyaha degmada daaqsan halkaas ayaa laga soo goostaa oo laga helaa dirirow. dhibaatada kalluumaysatada marba marka ka dambaysa waa sii kordhaysaa mana loo dul qaadan karo waa inaan si dhab ah cabashadeenna u muujinnaa. waa sax dirirow cid noo jeeddo ma lahan anaga cabasho ma gudbinin sidaa daraaddeed waa inaan cabashadeenna si degdeg ah u gudbinaa annagoo wada jirna. mar hore ayaa loo baahnaa inaan gudbinno dhibaatadeenna oo aan la wadaagno maamulka deegaanka. dhib ma laha haddeer ayaan ka gaarnaa wax kasta waa inaan u sheegnaa dhibaatadana haysato iyo in la xalliyo dhibaatada laysimada aynu ku qabno oo la xakameeyo. waa hadal wanaagsan warkaasi waa war waxgala laakiin waxaa la doonayaa inaan si dhaqsaa ugu dhaqaaqno haddii kale waynala sii fogaanaysaa bahashan halkana lama soo gaartay haddii mar la caban lahaa dirirow. waa in kalluumaysatada maxalliga iyo kambaniyada iyo sidoo kale laysimadan xal loo helaa taas waa inaan maamulka u sheegnaa oo aan uga dacwoonnaa. waa sidaas dirirow marka cabashadeenna la maqlo waxaan filayaa in wax nalooga qaban doono oo nalaga aamusi doonin insha allah. waa wax jira haddii dhibaatadeenna la ogaado wax uun in laga qaban doono oo aan nagala aamusi doonin. waa arrin wanaagsan ee aynu ku dhaqaaqno hadda dirirow. qof ayaa i soo wacaya ee bal'aanka qabto oo taleefanka maba garanaya anigu waa sidee halow haa codkaaga waan garan la'ahay. waan ku salaamay dirir. waan kaa qaaday waan ku garan la'ahay saaxiib. waxbaan ku mashquulin taase iiga warran saaxiib xaaladda iiga warran diriro maxaa ii kaa dambeeyey. waa la fiican yahay wax dhiba ma jiraan waa iska cararanaynaa inta naftu nagu jirto. waa sax taasi laakiin waxaa loo baahan yahay meel nacfale in lagu cararo ma garat saaxiib oo loo shaqo tago. waan gartay. waxaa iiga warantaa shaqada sidee kugu socotaa xaaladdiida guud iiga sheekay saaxiibadda sukan dambaysay. walaalow isku kay sheeg kuma garanayo aniga yaa tahay bal aan ku garto qofka aad tahay marka hore. alla saaxiib diriro waxaa kuu fiicneed shaqada hore ee burcadbadeennimada marka runta kuu sheego waayo qoyskaaga waa dabooli jirta baahidooda laakiin hadda waxaad haysto ma jiraan waan ogahay. warniyahumaad isku kay sheegtid. taasi muhiim ma aha ee ila hadal saaxiib dirir. sideen kuula hadlaa haddaanba ku aqoon aniga. saaxiib waxaan kuu sheegaya inaad ku soo laabato shaqadaadii hore ee burcadbadeennimada si reerkaaga aad ugu filnaatid. waan gartay waa sida ay kula tahay taasi. waa talo walaalnimo waxaa kuu wanaagsan inaad hawshaadii burcadbadeennimada ku soo laabatid meesha aad hadda ka shaqaynaysid waa iska yoomka oo keliya dhaqaale fiican ma lahan waan ogahay. war ileen annagaa wax aragnay niyahow yaa tahay maxaad isu qarinaysaa isku kay sheeg. dantaada ayaan kaala hadlaya ilaa hadda saaxiib ee dib ugu soo laabo shaqadaadii aad garanaysay ee burcadbadeennimada. haa yaa maxaa idhahday dirir maxaa ku qufashay. waxaan ku weyddiiyey mukhtaar miyaa qofka ila hadlaya. sahanka 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 nolosha. dhegaysta waxaa halkaasi ku dhammaatay qaybta 9aad xalqadda 5aad ee sahanka nolosha. waxaa haatan la joogaa xilligii aan fikirkaaga dhegaysan lahayn adigoo ka soo qayb qaadanaya qaybta wicitaanka dhegaystayaasha oo isla hadda soo gelaysa ama farriin noogu soo dir nambarka 2285. su-aasheenna toddobaadka waa ma laga hortegi karaa kalluumaysiga sharci darrada ah ee laga fuliyo Soomaaliya? haddii ay jawaabtaadu haa tahay 1 inoogu soo dir nambarka fariimaha gaaggaaban ee 2285. haddii ay jawaabtaadu maya tahay 2 inoogu soo dir nambarka fariimaha gaaggaaban ee 2285. su-aasheenna haddii aan mar kale ku celiyo waa ma laga hortegi karaa kalluumaysiga sharci darrada ah ee laga fuliyo Soomaaliya? hamugaanin inaad dhegaysato sahanka nolosha jimco walba saacaddu marka ay tahay 2:15 duhurnimo. sidoo kale nagala soco barteenna Facebook.